hooyaday waxaan ugu deeqay dhuuxa lafaha waxay iga dhigtay bidaar anigoo aad u yar waxa murugada leh ayaa ah in hooyaday ay u malaysay inaan u sameeyey si aan qoyska u cebeey markii ay maqashay inaan timahayga ku waayay deeqdii dhuuxa lafaha ee aan iyada siiyey walaalkay wuxuu sheegay inuu isagu ahaa kii ugu deeqay isla markiiba waxaan noqday qof kastaa eedeynayo qoyska oo dhan waxay door bideen walaalkay xitaa sawirkii qoyska ee aan sawiray isagaa qaatay wuxuu siiyey hooyaday qof kastaana wuu ammaanay ugu dambayntii waxaan u dhintay cadho iyo qalbi jab ka hor intaanan dhiman waxaan ku dhaartay inaanan mar dambe hooyo ugu yeeri doonin laakiin ilbiriqsiyo kadib waxaan ku soo laabtay maalintii qaliinka lagu samaynayay dhuuxa anigoo ka fikiraya sidii ay iila dhaqmeen kadib markii aan ugu deeqay dhuuxa lafaha waxaan go'aansaday inaanan u deeqin hooyaday markii walaalkay i eedeeyey waxaan iska siibay sharabaadadayda waxaanan ku dhuftay afkiisa qof kastaa wuu xanaaqay waxayna igu amreen inaan jilba joogsado oo aan raaligelin bixiyo laakiin waxba igama gelin mana rabin inaan guriga sii joogo mar dambe guriga ayaan ka cararay kadib markii aan ka tegay guriga weyn waxaan ugu dambayntii dareemay xornimo maalintii xigtay walaalkay wuxuu aaday inuu u tartamo doorka filimka The Little Prince muuqaalku wuxuu ku saabsanaa ilmo aysan hooyadiis jeclay waxaan xasuustay inuu tartankan darteed ku soo galay fanka waxaan is idhi haddii aan heli lahaa doorkan waxaan heli lahaa lacag aan isku maareeyo markii walaalkay dhameeyey bandhigiisii qof kasta wuu u sacabtumay keliya agaasimaha ayaa u maleeyey in wejigiisu ahaa mid madhan oo la buunbuuniyey wuxuu sheegay in bandhigu ahaa mid aad u xun isla markii uu rabay inuu baxo ayaan hore u soo kacay waxaan codsaday inaan doorka isku dayo walaalkay wuxuu u maleeyey inaanan waxba ka aqoon jilitaanka markaasuu dadka dhex fadhiistay wuxuuna bilaabay muuqaal toos ah si uu arko anigoo is eebaynaya ma uusan ogeyn inaan u jilayo waayo aragnimo dhab ah bandhigaygu wuxuu ka ohiyey dhammaan dadkii daawanayay agaasimaha aad ayuu u dareen kacay markuu i arkay wuxuu ku dhawaaqay inaan noqon doono jilaaga ugu weyn ee filimka dhanka kale adeerkay wuxuu maqlay in guriga layga soo eriyey wuxuu aaday guriga si uu hooyaday ula hadlo hooyaday waxay dareentay dembi waxayna diyaar u ahayd inay i raadiso laakiin waxay gashay qol duug ah oo wax lagu kaydiyo shaqaalihii guriga ayaa u sheegay inay taasi ahayd qolka aan seexdo hooyaday waxay ogaatay inay igu riixday meel aad u adag waxayna miiska ku arktay qalab badan oo waraaqo laga sameeyey shaqaalihii wuxuu sheegay in kadib markii uu ku dhacay kansarka dhiigga aan bartay in qalabkani keeni karaan barako markaa habeen kasta halkan ayaan ku samayn jiray markii ay maqashay inta aan u qabtay hooyaday waxay go'aansaday inay guriga igu soo celiso oo ay wax walba hagaajiso laakiin markaas waxay maqashay war naxdin leh dhammaan laba sideedkii xubnood ee qoyska dhuuxoodu ma uusan la mid noqonkeeda keliya kayga ayaa badbaadin karay hooyaday isla markiiba waxay dirtay kaaliyaheedii si uu ii soo helo laakiin waxay internetka ku aragtay muuqaalkaygii jiritaanka walaalkay wuxuu igu eedeeyey inaan ka xaday doorkiisii hogaamineed wuxuu sheegay inaan u isticmaalay dhimashadii aabbahay si aan isaga uga cadhaysiiyo masraxa markii ay taas maqashay hooyaday habdhaqankeedii wuu isbedelay waxay sheegtay inaanan weligay mudnayn inaan wiilkeeda noqdo waxay dad u soo kaxaysatay munaasabadda saxaafadda ee filimka waxay igu amartay inaan iska daayo jilitaanka oo aan guriga aado waxaan idhi si adag ayaan ugu shaqeeyey tan maxaan doorka u siinayaa walaalkay hooyaday waxay ballan qaaday haddii aan tartanka ka baxo inay ii ogolaan doonto inaan ku noolaado nolosha uu walaalkay haysto laakiin ma aanan rumaysan si kalsooni leh ayaan ugu sheegay inaan qiimo weyn u abuuri karo qoyska waxaan idhi haddii ay walaalkay u dirto guriga ayeeyo inuu maqli doono hadalka laakiin hooyaday weligeed ma ogolaan doonto in walaalkay uu dhibaatoodo dadka oo dhan hortooda waxay ka sheegtay in aabbahay uu ahaa hunguri weyn waxay igu eedeysay inaan dhibaateeyo walaalkay waxay sheegtay inaan dugsiga hadalka ku soo celiyo ardaydana aan dhibaateeyo waxay sheegtay in qof aniga oo kale ah uusan mudnayn inuu noqdo jilaaga ugu weyn waxaan soo saaray xusuus qorkii aabbaha keliya kadib markii ay aragtay xasuusihii carruurnimadayada ee ku qornaa gudaha hooyaday waxay ogaatay inay qof khaldan jeclay waxay duntay amiirkii weligiis iyada daryeeli jiray